kulan waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah kulamada markaa go'aamin doona kooxda horyaalka Soomaali Premier League hoggaanka u qaban doonto waa ciyaarta adag ee u dhaxaysa labada kooxood ee kala ah horseed isoo kala kooxda kubadda cagta ee markaasi Elman waana laba ka mid ah labada kooxood ee fursadaha u haysteen markaasi fooqa sare horyaalka ee ka soo dhex muuqdaan xilli ciyaareedkan seeriga ayaa laga dhor sugaya waxaana markaasi laga sugayaa inuu u yeeriyo seeriga garsoore Cabdi Fataax Mire ciyaartina Elman ayaa baasatay markan waa kan ciyaaryahan Jamaal Zakariya ayaa haysta kubadda waxa uu la ciyaaray saaxiibkii laakiin faawulka ugu horeeyay markaasi Elman gashay waxaana lagu galay ciyaaryahanka lagu magacaabo Cabdikariin Qubaay cali cadda waa uu gadiyay markan waa kan ciyaaryahanka lagu magacaabo Farxaan waxaana uu wareejiyay saaxiibka Cabdikariin Cabdalla Maxamed Qubaay waa kan Qubaay afka hore Qubaay kaas fursad fiican no gool ayaa Ahmed Qaashe ayaa kubaddaasi isku laabay Elman waa ay madaxeeyeen weli dhaxdaanade ayaa markan soo tuuray fursad fiican waa kan markan weeraraya Samaaniya Farxaan Duqow Farxaan waa kan waa uu galaafka hore Zakariya ayaa ka saaray kubaddaasi Farxaan Maxamed Axmed Farxaan Duqow waayay markan dhaxdaayay taal horseed waa ay gadiyeen markan weerar ayay sameynayaan Farxaan Maxamed Axmed Farxaan Duqow Farxaan waxay dhaliyeen markaasi kooxda kubadda cagta ee horseed goolka koowaad ee ciyaarta horseed gool alla ya horseed cawiya maalin hoggaanka ciyaarta ayay qabteen alla muxuu cajiib yahay alla muxuu laacib yahay alla muxuu farsamo yaqaan yahay alla muxuu caqli ku dheelayaa kubadda Farxaan Maxamed Axmed Farxaan Duqow horseed gool Elman 0 12 daqiiqo ayay sheekadu soconaysaa waayay markan Elman ayaa baasan doonta Farxaan waa hor dhigtay Zakariya jidkana waa uu ka galay qaasho soo baxay aqli ayaa loo isticmaalay waana laga dhaliyay sheekaduna waxay noqotay gool yeber Farxaan Maxamed Axmed Farxaan Duqow ayaa markaas ciyaaryahan cajiiba Farxaan ayaa ciyaaryahan mucjisa Farxaan ayaa ciyaaryahan markaasi wacdara ka dhigay Soomaali Premier League Farxaan ayaa ciyaaryahan daayirta kale wada u furi kara Farxaan Maxamed Axmed Farxaan Duqow Farxaan ayaa ka abaalmarinaya tababarkii joogtada oo macallin Cabdi Joon uu siinayay shakuunda waa kan horseed maya waa dulmartay Elman kubadii ay tuurtay ciyaartina saaxiibayaal waa ay soo idlaatay qaybteedii hore waayay saaxiibayaal qaybtii labaad ee ciyaarta ayaa bilaabatay labada kooxood ee kala Elman iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee horseed Hamza awow Anwar Shakunda fursad fiican waa kan Saaga Ruushka Saaga no offside Abduqaadir Siido xali Saaga Ruushka agaag markan bele Elman goal Wahid Muumini ciyaaryahan karargan ee difaaca ka ciyaara kooxda Elman Wahid Muumini ayaa gool ka dhigay sheekadu waa 60 daqiiqo Elman gool horseed gool qaybtii labaad ee ciyaarta agaag saaxiibayaal sheekadu waxay noqotay gool kadib laadka xorta uu soo tuuray ciyaaryahanka lagu magacaabo bil cilmi weeliye waxa madaxeeyo oo madax siiraaciyay ciyaaryahanka lagu magacaabo waxiid ayaa madax qurux badan Elman ka markaa u dhalinaya wuxuuna ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee horseed sheekaduna waa gool ayaa xitaa waa u wadi waayay markaasi kubadda qaabkay u socotay marka loo fiiriyo
waayahay markan horseed waatan markan waa la weerarayaa kubaddaasi waa kan weeraraya ku jiraan hagaag markan faawul ayaa lagu gala cabduqaadir siido cali saayiga ruushka horseed waa la weerarayaa markan anwar sid cali shakunda markan anwar shakunda waa kan xamse ayaa loo dhigay xamse fursad fiican bannaanka u soo dhigay galaas دوان المان واين اللي تقول كلمات المان واين اللي تقول كلمات المان واين اللي تقول كلمات عندي فتاح واو عندي فتاح واو 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 عندي فتاح واو المانتو ارسد جول المان لما جول sheekaduna waxay noqotay tuuwan allah ilman maxay gidiyeen kubaddi allah ilman maxay cashir kale u dhigayaan horseed ayaa raadin doonta goolka barbara agaag saaxiibayaal جول لافي أيو شبغة كشوبة يا عياريان كلغو مقعابة عبد الفتاح عبد الشكور آوو أو بدل لغو سوق لي عيارتا وأحسن جول وحاو ترتمي كريا جول كسنتك وقروح هذا بدل مركن واتن ورسات فرصات في حد قوايا جول شايا لدقيا جول شايا مركن لدقيا نوني وحاو عيار صاحبكي إثيوبيا واكن وحاو كحرية اسنا صاحبكي هاجاك مركن توتو ارسد جول الله يا ريال كان كساعته ارسد وهي تمد جول كي بربرا ارسد وهي تمد جول كي بربرا عبد الكريم عبد الله محمد قباي عبد الكريم عبد الله محمد قباي مستر قباي يا قباي المان شاكد ولا بقول يا جول شاكد ولا بقول يا جول الله ما هي قلبت عيار عيسى الله قباي معو جول كدليي هدي جول قرحان لقى دليي ها بريسكا المانتو هرساتو agaag 72 daqiiqa ay sheekadu maraysaa saaxiibayaal waamna min laba gool elman dib ayaa looga soo celiyay hogaankii la wareegtay Umar Shariif ayaa soo shaqo galiyay markan madax ayaa lagu wareejiyay